السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جبوت حسن عبدي halka iga daawanaysan waa YouTube-ka جبوت حسن عبدي. waxaan rabaa caawina ka hadlo marxaladda ka taagan Soomaaliya markaasi iska qabsiga siyaasadda markaasi la isku haysto markaasi loo leeyahay macnaha xal inaan ma caaw ka hadlaan rabaa waxyaabaha socdana hadee kulli qof kasta waa ka warhaya in ay xaalka Soomaaliya ay aad u qasan tahay. إلهينا وحكر رجينا إني نوهج أو إلهي نتوسيو عرض يوحيا وعسنا إلهي نجحايو لسكنا أفكرتو سياسة الدلكة ديو حسلين تيدا إلهي إذن كيس عدنا شعب كصوماليات أنا نوم في عنا عرض محيا لي نبدأ يا وحيدها شيخ علي مركاسي aan marnaba wax la siisto aysan jirin waana bini'aadanka waxa uu ku nool yahay waa nabad kadib ayaa waxa soo labay barwaaqada iyo waxyaabo kale marka arintaas rabana ka hadlo insha Allah hadii aan leeyahay arintan marka taagan hadii aan ka hadlo waxa horta nabadda waa shay qaaliya in ragga isku haysto siyaasadda inay markaasi is afgartaan wadankana loo dejiyo siyaasad xasilooni iyo nabadgelyo ayaa anaga naafacdo waayo anaga shacab ayaan nahay siyaasadda kuma jirno balse colaadaas hadii dhacdo ama dhibaato ay dhacdo macnaha wax anaga markaasi naga soo gaaray ama wax noo taray ma jiro marka waxna anfaco ama nalajiyo waa nabadgelyada in Ilaahay noo gelino si insha Allah Ilaahay idinkiis waa rajeynina waxaan rabaa inaan ka hadlo hadda ka hor Muqdisho ayaa waxa ka dhacday dagaal adoo dhowr mar waxa ka dhacday laakiin midii adigu 2000 iyo 2012 inay helaan jeclahay insha Allah waxa dhacday colaad markaasi dagaal iyo qax iyo madaafiic iyo balaayo adigu dhacay aniga goobjoog ayaa waxaan deganay xaafadda suuq xoolaha waxa dhacday in markaasi xaafadii laga wada cararay aniga waa is adkeeyay wax badan is adkeeyay waxaan islahay hadii arinta ku dhaafto jawiga waa iska fiicnaan doonaa balse dadkii dhamaayaba ka qaxay magaalada anigana marka waa ii suurtageliyay inaan ka qaxo macnaha inaan joogo ii suurtageliyay sidaas darteed markaasaan waxaan sameeyay waa iska qaxay waxaan aaday dhankan iyo adigu la foole balse ma marin wadada saxda ah ma marin
dhinacaan afgooyo aan dhinacaan waxaa ka baxnay jowhar. waxaa dhacday in intaan sii soconay markaasi aan la kulanno jidkii oo markaasi iska roob iska ahaay inta u dhexeyso adigu jowhar markaan tagnay oo xagga ka leexanay oo afgooya xagga kasoo gali rabnay ayaa waxaa da-ay roob markaasi aad u badan. marka roobkii waxay noqotay in baabuurtii ay dhiiqadii gasho. ilaahay kuma samadiida. waxaa kaloo dhacday intaan meesha ku jirnay gabar ayaa meesha ku foolatay oo markaasi xaamile ahayd. wallaahi aad iyo aad ay arrin aad u xunay ahayd, aad u adagay ahayd. anigana dee maadaama anin iska xanuunsan oo markaasi aan socon karin gaarigaan saarnay meeshii aadaan ugu daalay. habeenkii meeshii dhiiqadaan barinay. subaxii alaseydii ayaan waxaan ka baxnay marka dhiiqadii waxaan tagnay afgooye. markaasi aan kasoo wareegnay haddana la folxa kasoo galnay. wallaahi aad iyo aad waxay u ahayd dhib badanay ahayd. marka intaasna waxaa keena waa colaada. macnaha haddii colaada dhacdo markaasi meesha wax ma yaalaan, waa lagu kala tegaa. marka sidaas darteed waxaan leenahay ilaahay horta qax iyo dhibaato dambe ilaahay naguma celiyo. arrintan taaganna ilaahay baa xalkeeda keeni karo. marka sidaas darteed waxaan leeyahay arrintaas nabadda ha laga shaqeeyo, waddanka dhismadiisa ha laga shaqeeyo, sidii markaasi waddanka horumar ku gaari lahaa qof walba oo Soomaaliya inuu ka shaqeeyo waa insha Allah ilaahay idinkiis. waxaa naafaco ama la deeqdo waa nabadgelyada. wallaahi hadda magaaladan saan u shidan oo jawigeeda iska fiican yahay. haddii colaadi dhacdo waxay galaysaa jawi nooc kale ay galaysaa. marka sidaas darteed ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in annaha ay colaadaani aysan ilaahay colaad nagu ridin insha Allah. saasaan rajeynaa haddii aan doono. waxa dad lagu yahay waxaa waaye ama qofku uu qofku yahay waa nabadda insha Allah. waxaan rajeynaynaa in ilaahay nabadna siiyo.